waxaanu firin doonaa mar kale how to place order on MT4 mobile, modify, close, set expiry date, yacni sida looga furto order ama looga trade-gareeyo mobileka, loo modify gareeyo positionka, lisaga xira, saasoo kale sida loo isticmaalo pending orders iyo in lagu xiro waxa loo yaqaano expiry date. Akoonkan ina hor yaallo waa akoonkii deemada ahaa ee aan soo furnay ee 50 kun ahaa. Soo marka waxaanu samayn doonaa inaan ka furno order. Haddii marka aad rabto inaad furto order aad furto, marka hore yacni qaybta orderka aad ka furan doonto waa inaad yacni aad navigate garaysaa tabka loo yaqaano quote tab oo halkaa geedka soo xigo. Waxaad siin doontaa click this quote tab click siin doontaa. Then waxaa marka kuu soo bixi doona lacagaha aad rabto. Dhammaan lacagaha halkan ay yeelaan. Haddii in case aad weyso waa naqaana si lagu soo darsado waxaad aadi doontaa iconka pluska. Laakiin hadda waxaan rabnaa gold hoos ayuu yaalaa. Waad riixaysaa marka. Markii aad riixda kadib waxaa kuu soo baxaya inta tan. Hadda marka ma rabno chartiga inaan fiirino iyo waxaan kale waxaan rabnaa kaliya inaan fiirino new order inaan taabano because waxaan doonaynaa inaan furno order cusub. Then waxaad click siin doontaa new order. Waxaa kuu soo bixi doona muuqaalkaas. Halka marka waxaa yaala orders badan oo kala duwan waa halka markaas laga saxo dhammaan hawlaha aad rabto. Marka hore waxaad dooranaysaa marka type aad rabto. Waxaad rabtaa inaad ku gasho market execution. Market execution casharkeena hadda aan ku soo aragnay waa haddii aad rabto suuqa kan inaad waxba aadan ka bedelin ee aad ku gasho buy ama sell. Inaad sell garayso asagoo sidiisa ah ama inaad buy garayso asagoo markaas yacni hadda qiimaha uu marayo. Waa instant execution. Hadda waxaan leeyahay buy ama sell. Marka haddii aad doonayso hadda inaad suuqa aad gasho waxaad yacni aad ku daynaysaa market execution kiisii. Laakiin haddii aad doonayso inaad qaadato order kale waan fiirin doonaa. Maxaa ka marka laga rabo inaad samayso? Waxaa laga rabaa inaad iska saxdo halkaas ay ku qoran tahay kan iska tiro. Halka marka ku muuqanaysa waxaa la geliyaa lot size-ka halkaas. Lot size-ka waxaad u gelin kartaa si manual ah ama waxaad ku sixi kartaa oo aad just ugu samayn kartaa labadaas qaybood. Qaybtan waa qaybta pluska ah. Meesha hadda ay tahay haddii aad rabto waxaad ku sii darto ama haddaad rabto inaad ka reebto kale for example hadda waxaan noo dooran waa lot 1. Haddii marka aan rabno lot 1 kan aan ka soo yareyno waxaan dooranaynaa qaybtaas minuska ah. Aan dooranaa halkaas mar walba 10 ayaa soo dhacaysa. Waxaan dooranaynaa qaybtaas minuska. Ilaa waa 10 kana waa hal yani ayuu soo dhacay markaas. Haddii kan aan doorno saas ayuu soo dhacay 1 okay. Haddii marka aan rabo inaan ku darana halkaas ayaan uga darayaa plus. Hadba dhankii aan rabo ayaan wadana marka ay ka dhigan tahay. Okay. Sawirka halkaas waxaa samayn kartaa si manual inaad u qorto. Markaas si manual ah ay samayn kartaa inaad kan iska tirto simply marka yani toos u soo qortaba ayaad heli kartaa symbol. Hadda mid ku fudud. Okay. Halka marka waxaad ka saxatay lot size-ka. Lot size-ku muhiim ah waxa go'aaminaya loss-kaada iyo profit-kaada. Dan waxaa ku soo haray stop loss iyo take profit. iyaguna halka ayaa la kala dhigtaa. Halka ay ku qoran tahay qoraalkaas waxaad dhiganaysaa iyo stop loss. Halkaas waxaad dhigan doontaa iyo TB. waa TB-ga lacagta aad ka rabto iyo SL-ka lacagta tan aad ka rabto. Okay. Marka TB-ga stop loss-ka hore aan soo baranay sida markaas loo xisaabiyo TB and stop loss. Lacagta tan hadda gooliga waa tan ASCII bit halkan ay kala maraysaa. ASCII bit waa ka. So marka haddaad rabto inaad ku soo darto bibka waxay ku xiran tahay ma waxaad rabtaa inaad u gasho buy mise waxaad rabtaa inaad u gasho sell labadaba. Then waxaa jirta qaacido haddii lacagta for example waxaad maraysaa qiimaha 3.2 hal ay maraysaa. Marka waxaa jirta qaacido for example haddaan isticmaalno kale 20 pips oo kale 20 pip waxaan ka hadlaynaa waa stop loss-ka.
haddii marka stop losska aad isticmaalayso 20 pip waxay marka ku xiran tahay buy stop loss aad ugu xirato adigoo buy ah waa inaad ka jartaa qiimaha 20kaas waad ka jaraysaa inkastoo zero halka wixii ka jira laga jari doono waxay noqonaysaa marka minus waa markaad buy tahay stop lossku wuxuu noqonayaa minus halka TB gu uu noqon doono plus waad ku daraysaa macnaha TB gu waa plus stop losskuna waa minus markaad tahay buy okay markaad tahay sellna waa bilcagsi sellkuna waa cagsi waxaan ka soo diyaarinay 10 soo marka dib ugu laabo 10radii soo fiir insha Allah inuu marka halkaas kala geli kadib ama si toos waxaad dhihi kartaa adoo iswareerinba buy arkaysa si direct u buy garaaclada buy waxaa ku furmay order buy orderkii buy halkaas uu kaaga soo muuqanaya kadib markaas halkan waa positionska ku furan